Tababaraha Manchester Robin Almiron ayaa uga digay ciyaartoydiisa inaysan jiri doonin waxaana marsiyaa haddii aysan ka badin Everton kulanka Axadda. Almiron wuxuu mar kale isku diyaarinayaa kulan kale muhiim ah maadaama ciyaaruhu si xawli ah u socdaan. 39 sano jirkan ayaa la wareegay kooxda Manchester barbara gool iyo gool ee la galeen Ipswich inuusan 3-2 kaga badiyaan kooxda yar ee Bodo tartanka Europa League. Almiron wuxuu qartay inuu ka fikirayo tamaasha kooxdiisa ka hor jadwalka mashquulka badan. waxay tahay inaan ka fikiro Almiron ayaa yiri markii wax laga weydiiyay jadwalka ciyaaraha xiriirka kooxdiisa ku soo wajahan. Aan isku shandayn doonaa ciyaartoyda waan isticmaalno 4 bedel kulan kasta si aan u maareyno jirka ciyaartoyda. Maahna ciyaartoyda oo kaliya waxaan maamulayo sidoo kale tamaashaha xidigaha oo muhiim inaan sameynaa wax walba heli doono wax cudurdaar ah haddii aan badin weyna hadda iyo hadalkiisii raaciyay. Tababar Almiron dhibaato dhaawacay u soo yeeraysa Liverpool. difaaca Liverpool Ibrahim Konate ayaa la xaqiijiyay inuu wajahayo dhaawac jilibka ku seegi doono kulanka adag isbuucan. Konate isku dhaceen goolalyaha Real Madrid Enrique ciyaartii ugu dambeysay Champions League ee ku badiyeen Anfield. Konate ayaa maray baaritaan lagu ogaanay intuu leeyahay dhaawaciisa iyadoo macalinka Liverpool Slot oo qartay dhaawaciisa inuusan wanaagsaneyn. Daafaca dhexe Liverpool yaan haatan qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku muujiyay garoomada ka maqnaan doono muddo aad u badan ka bilaabanaysa kulanka Axadda Premier League ee wajahayaan City. Konate ayaa yiri aad ayaan uga niyad jabsanahay dhaawacan isoo gaar dhamaadka ciyaartii weyneyd ee Madrid. Hadda waxaan bilaabay habka ugu fudud soo kabashadeeda laakiin hal shay aan ballan qaaday ayaa ah inaan ku soo laaban doono anigoo aad u xoogan ayuu yiri Ibrahim Konate. Arsenal isha ay ku haysaa yaraanka Madrid Arda Güler kor suuqa Janaayo. Gunners ayaa xiiso qabtay xidig heerka caalam Turkiga ka oo si weyn uga careysan boos la'aanta ka haysata Madrid. Inkastoo Madrid aysan doonin in lumiyaan isaga haddana waxaa jira suurtagalnimo ama in lagu fasaxo. Arteta ayaa ku xoojin kara qadkiisa dhexe yaraankan dhanka weerarka. Güler ayaa 14 kulan Madrid u saftay xilciyaareedkan laakiin wuxuu ku soo bilowday kaliya 5 jeer wuxuuna u anqaltaagaya inuu helo fursad badan. 19 sano jirka ayaa dhaliyay 1 gool isagoo 2 caawin sameeyay 5 kulan oo ciyaaray Championka sidoo kale 1 gool ayaa la caawinayay sameeyay 6 kulan oo ciyaaray Nations League xulkiisa. Güler ayaa xilciyaareedka hore dhaliyay 6 gool 10 kulan oo la ciyaaray ama liigaha ka soo muuqday. Arteta inuu arka inuu tartan adag wiilkan la geli karo Trossard iyo Gabriel Martinelli. Güler waxa uu u leeyahay inuu fursad u helo shaxda Arsenal ana sababta ku qasbaysa inuu doorto kooxdaasi.